waa maalin cusub oo bilaabantay Togga weyn ee Burco waxuu soo jabsaday qarqarada iyadoona ay marayaan waqtigan biyo xawli ku soconaya waxay hakiyeen hawl maalmeedkii dadweynaha iyo gaadiidka isaga goosha qaar ka mid ah xaafadaha Burco halkani waa qayb ka mid ah xaafadda Aktoobar oo ka mid ah xaafadaha ugu waaweyn magaalada Burco waxay jaar la tahay dooxa Burco oo ah marin ay ka tallaabaan maalin kasta boqolaal qof oo u gudba qarka Togga oo isku xidha xaafado badan haddaba maxay tahay dhibaatooyinka ay la kulmaan dadkaasi waqtiga ay soo maraan daadadku waxaanu ka cabanaynaa Toggiyo habeen dhaweyto soo dhacay oo si lixaad loo soo dhacay oo daadkii ugu weynaayay loo jiray xaaboole oo soo rogmaday marka anagu waxaan ka midnahay ardayda dhigata dugsigan xaggan tan looga xigta waxa caqabad ugu noqotay inaanu markay daadku soo dhaco inaanan Toggi ka tallaabin oo Toggi uu daad ku soo rogmado oo halka xiisadahaygii iyo iskuulkaygiiba uu deeyla 3 cisho 4 cisho buu Toggu socdo oo aanan ka tallaabin ayaanu caqabad ugu noqotay marka xukuumadda dawladda waxaanu ka codsanaynaa inaan biriishka sheegayeen lahaa wala marinayaa oo Togga la marinayaa si ardayda iyo dadkii kale baahiya xagga u qaba ama xaggan u soo tallaabaya ama xagga u tallaabaya inay caqabad ku noqotay baan markaa ka codsanayna inay xukuumaddu noo dhisto biriishkii mari lahaa halkan ay ku ballan qaadi jireen awalba waxaan u baahanahay togdheer biyaha 24 saacadood ee biyuhu ka soconayaan in naloo hagaajiyo oo biriish naloo saaro oo dadkii balaase iyo ilaa Aktoobar inta uu isaga tallaabaya biyihii uu ka bixi kari waayay dadkii kala go'doon buu noqday waxaanu jecelahay Togga in loo hawl galo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa in biriish loo sameeyo waayo dhawr artaa nafteedu inay halig bay ku jirtaa habeenkii adoon ogeyn bad ka soo tallaabaysa ma ogid dusha saru maraya haddana inuu kugu soo dhaca muhiima iyagoo qalalana waxba mareen marka ay kasta nafta Ilaahay hayo haddana waa khatar in laga taxadaro weey waxaan ka imi iskuulkan la yiraahdo mustaqbal iskuulka waxa ay dhigtaa ciyaalka ay dhigtaa qiyaas ahaan 2 kilomitir buu noo jiraa iskuulka iyo gurigaygu isu jiraan waxa weeye lacag baan bil kasta waxaan ka bixiyaa lacag iyadoo iskuulka inta ay jiro basas bay raacaan ciyaalku ilaa 5 ilaa 6 ciyaal ay dhigtaa marka waxa weeye hadii ama qof waxa uu iskuulka iga yimaadaan anigoo gaari raaca oo kireysta mooyaane oo ilaa uu la soo wareego ilaa 2 saacadood ama ilaa 1 saac ila soo wareego mooyaane lama iskuul la tay kara maaha qiyaas ahaan labada reer ee isu jira iskuul marka Toggan la qiyaaso ilaa 90 mitir ayuu ku fadhiyaa labada reer ee midna qarkan ka yaala dab ma kala qaadan karaan biyana ma kala qaadan karaan marka dib weyn buu dadweynahan hadaan nahay reer Aktoobar ayuu Toggani nagu hayaa waana hadii wax laga qabto waa meel aad iyo aad biriishku isaga dhow yahay laga sameyn karo biriish laga sameyn karo run ahaantii anagu waxaan ka codsanaynaa ma garanaysaa ama dawladda haday tahay iyo hay'adaha caalamiga iyo ganacsatada reer Soomaaliland ama reer Burco in wax laga qabto Togga oo biriish loo sameeyo ayaan ka codsanaynaa biyaha mara Toggan ayaa inta badan si lama filaan ah u soo mara waxaana badi dadka ka gudbaayihiin kuwa hawl maalmeedkooda ka soo guta dhanka kale sida uu sheegayo oday weyn oo nooga waramay khatarta uu ku hayo Toggaasi inta badan oo aanu halkaasi kula kulannay xaaji magaca Axmed Togga reer Aktoobar baa taymiya marka waxaad tiri ka talo dib baad uga noqotay waad ka noqotay waad ka talaabi kari weyday Soomaa marka dib buu kugu hayaa marka maxaad u socotay waxaan u socday daanka masaajid xagana masaajid iyo baan u socday adiyaad waan gaadhay oo ku socotay marka saako kaliya soo martay mise mar walba waad ka talowdaa inta badan aan biyo ku jirin baan ka tallaabaa laakiin haddii biyo ku jiraan waad ka noqotaa waa ka noqdaa ay sida ay yihiin adiyaad
marka laga yimaado labada bridge oo ah halbowlaha nolosha dadweynaha reer Burco kana qayb qaatay inay fududaato isu socodka xaafadaha daamaha kala duwan ee magaaladu haddana waxa ay dhacaan bartamaha magaalada xilli magaaladu dhinacyada u fiday walow aan la dhayalsan karayn halista dooxa TOGDHEER oo ka mid ah togaga ugu waaweyn Somaliland iyada oo ilaa iminka aanay jirin qorshe lagu dhisayo bridge xaafadaha fogfog xukuumadda talada dalka haysa iyo waliba golaha deegaanka xilligiisu sii dhamaanayo ee Burco. Bridge-kan aad arkaysaan ee dabadayda ka muuqda waxa lagu magacaabaa Dero Bridge. Waxa la dhisay muddo 12 sano ka hor waxaana si iska wax u qabsaa u dhisay dadweynaha magaalada Burco isagoo tan iyo markii la dhisay ka qayb qaatay isu socodka dadka iyo gaadiidka qaar kamida xaafadaha magaalada Burco. Walow magaaladu ay ballaaratay muddada kadib haddana qaybo kamida magaaladu kama maarmaan inay helaan bridge noocaas oo kala ah. Sakariye Ilyas Jakarta warbaahinta Star Burco.